xafiiska beeraha iyo xoolaha maamulka magaalada Goday ayaa iskaashatooyinka ka faa'iideystay wax soo saarka beeraha ee magaalada Goday u qaybiyay gashiyada beeraha ee sida bacriminta dhulka si kabis ay ugu noqoto beeralayda sanadkan uu wax soo saarkooda saameeyay ayuxu taasoo uu soo gaarsiiyay bacrimintan xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ee dowladda deegaanka Soomaalida waxaana gashiyadani looga faa'iideysto dhanka beeraha warbixin naga siiyay madaxa xafiiska beeraha iyo xoolaha maamulka magaalada Goday mudane Maxamuud Daahir gashigan waxaa iska kaashaday xafiiska beeraha iyo kheyraadka dabiiciga ee heer deegaan iyo sidoo kale xafiiska beeraha iyo kheyraadka dabiiciga ee heer federaal bacrimintu waxay ka kooban tahay laba nooc waa urea wax la yiraahdo iyo DAP way isku jirtaa si islaag bay noogu timid bacrimintan waxaan ugu talagalnay inay ka faa'iideystaan guud ahaanba beeralayda ku dhaqan maamulka magaalada Goday kuwaas oo ugu qaybin doono qaabka ugu habboon isla markaana cilmiyeysan anagoo ka duulayna guud ahaan iyo waxa halkan ugu beeran iyo waxyaabaha ay haystaan dhul beereedkoodana markaa anagoo ku salayn doona waxa loogu talagalay oo loo keenay bacriminta kala duwan waxaan la yiraahdo desert locustiga ama ayaxa lama deegaanka kaasi oo saameyn baan u geystay guud ahaanba dalkeena Ethiopia iyo guud ahaanba wadamada kale ee Geeska Afrika sida Kenya, Soomaaliya iyo wadamada kale ee Geeska Afrika dhaca guud ahaantoodba si gaar ah u saameeyay deegaankeena Soomaalida iyo maamulka magaalada Goday beeralayda ku dhaqaneed ayaa loogu talagalay in lagaga jawaab celiyo oo noqoto taageero lagaga jawaab celinayo saameyntu markaa oo ay xogeystay dhankooda iskaashatooyinka beeralayda ee loo qaybiyay bacrimintan beeraha ayaa soo dhaweeyay taageeradani gashiyada beeraha ee ay heleen maanta waxaa noo yeelay xafiiska xoolaha iyo beeraha oo la guddoonsiiyay gashigan aan aad ugu baahi qabnay urea iyo DAP-ka haddana iskaashato beeralayda maamulka magaalada ka kooban aad baan ugu baahi qabnay annagoo maaragtay hadda ka hor aysan jirin wax sidan oo kale intuu noogu yeedho na guddoonsiiya nidaamkan waxaan dhul beereedka annaga nooga faa'iideysanaynaa intan iyo in ka badan maaragtay aan ka rajo qabnay inay noo sii qabtaan maasha Allah aad u maanta waxaan la siiyay agab muhiim aad noogu ah sida urea oo magaalada beerta iyo tabacyada anadoo dhan aad ay muhiim ugu tahay laada ku soo mogoliyay tan iyo tulla mid oo kale tan aad baan u soo dhaweynaynaa beertaydu waa 5 hektar waxa total aan leeyahayna waa 10 hektar caqabado jiro iyo waxyaalaha urea badan iyo xagga xafiiska beeraha aan uga baahnayn maanta sidan oo kale tan markay tahay barika maalina waxaan isku dayaa inaan dhammaan inta hektar aan leeyahay dhan baan ku beero Mustafa Yusuf SRTV magaalada Goday.